مسؤوليinta dawladda hoose oo hogaaminayo maayirka degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane iyo qaar kamid ah xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada Boorama ayaa waxa ay gudoonsiiyeen shirkadda u qaabilsan nadaafadda degmada ee Horseed agab ay kamid yihiin taayiro iyo bayteriye isla markaana ay ku dhiirigelinayeen sidii ay kor ugu qaadi lahaayeen bilicda magaalada wareejinta agabkan oo ka dhacday xafiiska shirkadda Horseed ayaa waxa ugu horeyn ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda nadaafadda degmada isla markaana u mahad celiyay guud ahaanba dawladda hoose ee degmada Boorama inaan uga mahad celino dawladda hoose wada shaqeynta iyo oo shaqada ay la hayaana maadaama ay tahay shaqadii nadaafadda magaalada waxaan halkan kula wareegaynaa taayiro gaadiidka shirkadda dhamaantooda iyo bayteriyadoodii oo uu naga ballan qaaday gudoomiyuhu iyo bahda dawladda hoose ayaan kula wareegaynaa ka gudoomaynaa gudoonka ama maayirka degmada magaalada iyo golaha deegaankaba ee Boorama taayiro iyo bayteriyo aan runtii baahi badan aan u qabnay baahidaas oo ahayd baahi ay shirkadu muddo badan ay ku ragaaday oo runtii intaasi kadib waxa iyaguna ka hadlay qaar kamid ah xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada Boorama kuna dhiirigeliyay sida ay hawsha u wadaan madaxda shirkadu ayaa waxay yiraahdeen idinku inaad ku dirsatiin istiraatiijiyadaatiin 40 kun ee ku yaala inay khashin laga dhameeyo degmadu nadiif ay noqoto siyaasadda golaha deegaanka ay kamid tahay siyaasadda dawladda dhexe madaxweynuhu ku hogaamiyay kamid tahay bulshadu way muuqataa anaguna waan garab taagnaa waxaan Boorama oranaya waranagu wanaga maanta gacanteena fidina inaguna gacanteena fidiya oo $3 ama $5 ee ma taqaana biilka $100 iska bixiya saayib dakhli weelan oo boqolkiiba qof ay maamulaan ay isku dabaraan shidaalka ugu bixiyaan ugu dambeyn waxaa madashaasi ka hadlay maayirka degmada Boorama Maxamed Xuseen Maydhane uguna hanbaliyay sida ay hawsha u wadaan sidoo kalena baaq u diray bulshada ku nool magaalada Boorama inay garab istaagaan shirkadda nadaafadda degmada gudida shirkadda qashinka Horseed oo run ahaantii muddada ay xilka hayeen wax weyn ka bedelay xaqii bilicda magaalada dadweynaha waxaan ka rabnaa baabuurtoonaga daayactirnay islaam walba gurigeeda lagu soo gaarayaa qashinka gurihiina ku hay qashinku isma soo qaadaya banaanka isma soo dhigaya qofkii guriga lahaa intuu soo qaado wadada soo dhigaya ha ka daayo gudoomiyaha deegaanka hadaan ahayna anagu waan saarnay lacagta haddana aan diyaarinay qiimayntiisa iyo lacagta meeshan ka helaynaan aan diyaarinay in islaamta dhaqankeeda haddana ka soo qaaday wadada noo dhigto ka yeelmayno qofka aan ku helno waan ku ganaaxina waliba waan ku xidhayna aqalkiisa ku hayso intaasi kadib ayaa waxay si degdeg ah shirkadu u bilowday olole nadaafadeed iyadoo isla markiiba ku qaaday dayactirka godka lagu rido khashinka oo ka baxsan magaalada Boorama ayaa waxa ololahaasi ka hadlay qaar kamid ah mas'uuliyiinta shirkadda intii hore waxaan mudooyinkii hore oo dhan ka shaqeynay magaalada dhexdeeda waxaan hadda ku suganahay meeshii qashinka oo sidii mudooyinkii ugu dambeeyay cabashooyinkooda la maqlayay magaalada qashinkii soo gaaray marka maanta waxaan isnidhi haddii ololuhu awal magaalada uu nahay qashinkan meesha lagu subayo iyo ee uu tagay qashinku inaan u hagaajino ayaan ka shaqeynaynaa runtii waxaan u nimidnaa waa dayactir godka oo haddaan la dayactirin godka ama aan god cusub la samayn taxshiishkii wuxuu noqonayaa mid ma taqaanaa fadara oo yani meel walba gaara ayaa runtii u nimid halkan sidii aan wax uga qaban lahayn waa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha telefishinka caalamiga ee bulsho magaalada Boorama.